sidii ay doorashadii Jubbaland u dhacday ilaa hadda state-ka Jubbaland khilaafkiisu marna ma damin turxaamihii iyo turunturooyinkii iyo isdiidooyinkii ka dhashay doorashadii Jubbaland ilaa hadda waa tasaamaysay goboladii maamul goboleedka Jubbaland arrinta gado waxay qayb ka ahayd khilaafaadka shacabkii ku noolaa Jubbaland ay ku qaybsameen doorashadaas waxa la soo jeediyay xukuumaduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashana ay ku taliyeen koow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo arrinta maamulka Jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxa la soo jeediyay in doorashada ay maamulaan degmada Garbahaar ay tagaan ciidamada booliska oo ka socda nabad ilaalinta AMISOM taana way diideen maamulka Jubbaland waxa la soo jeediyay guddi xaqiiqo raadina in la diro oo loo diro gobolka Gado iyo Garbahaar guddidaas oo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda state-kan Jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka dhan ay tagaan arrintaana way diideen hogaankii Jubbaland intaas markii la isla afgaran waayay waxay noqotay meel looga gudbo in la waayay waxa aad loo tuhunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata qooda shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhamaanin kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogol arrinta runtii dawladdu dadaal walba ay ka gashay sidii gobolka Gado doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd isteediyada kale laakiin waxay ku adkaysteen maamulka Jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la sameyn iyadoo hadda dagaal ka dhaceen 10 maalmood ka hor iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dawladdu u aragtay inay keenayso iska hormaad cusub oo isku dirta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aan suurtagal ahayn sida uu uga mid yahay gobolka Gado Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gobol walbana xukuumaddu u danaynaysa oo uu uga mid yahay wixii duruuf iyo shacabka dareenkooda ka jirana ay waajib tahay in laga jawaabo sababtay lama rabo wax hadhowto mushkilad keenay